Bismillahi Rahmaani Rahiim. Waxaan kugu soo dhaweynayaa koorsadaynay Computer Application barashada MS Word 2010. Mawduuceen wuxuu ku saabsan yahay headers and footers. Qaabkay documentigana loogu soo daraa header oo ah mawduuc lagu sameeyo qaybta ugu sareyso ee documentiga, iyo footers oo qoraal ah ama mawduuc qoraal ah oo looga sameeyo qaybta ugu hooseysa ee documentiga. Okay, equal front documentiga qoraalkan iskaga qornaado soo weynayso qoraalka. waxaan ka bilaabeynaa wax loo yaqaano headerka inaan sameyno. Headerka oo ah qaybta ugu sareyso inaan qoraal kusoo qorno oo documentigana kamid yahay qoraal inaan iskaga qorno. waxaan tegaynaa tabka loo yaqaano insert tab, groupkan loo yaqaano header iyo footer. waxaa ka dooranaysaa header oo ah qaybta ugu sareyso ee documentigaada oo page walba ah inuu hal mar kasoo muuqdo mawduuc ka turjumayo documentiga oo dhan. So headerka markaad dooratid wax kusoo bixi doona intaana option mid kamid ayaa ka dalban doontaa, ama mid blanki qaabka noocan kugu soo muuqanayo, mid noocan kaaga soo muuqanayo, mid calaamada hoos xariiq kaaga soo muuqanayo, kadibna documentiga magaciisa aad qori doontid. mid kamid aad ka dooranayna, kadib meeshaas ay type document title ay ku qoran tahay wax iskaga qoraynaa. tusaale ahaan practice ayaan ku qoraynaa practice. Okay, meeshaas ugu sareyso ee documentigeena iyo kasoo muuqana waxaa laga yaqaanaa header. So haddii aad sameyno qoraal kale oo noo muujinayo pages badan, so page walbo oo aan tagno kan hadda waxa ku qoran practice. page walbo oo aan tagno waxa ku qornaan practice practice practice. so marka headerka qaabkaas loo sameeyaa in waa qoraal kasoo muuqanayo qaybta ugu sareyso ee documentiga. si lamida headerka asigana waxa weeye qoraal kasoo muuqanayo meesha ugu hooseysa ee documentiga. isla meesha laga tagaa insert tab, groupkan loo yaqaano header iyo footer. waxaa ka dooraneynaa footer ka dooraneyna. si lamida optionska hadda iyo ku siinaa mid kamid ah ka dooranaysaa. kan wuxuu kuu suurtagelinaa qoraalka meesha ku qoranaysid iyo wax isla socdo page numberka. tusaalehaan waxaa ku qoranaysaa barashada footer footeriska tusaalehaan. so haddii aad tago pageka meesha ugu horeeya ama page walba hoostiisa waxaa ku qoran barashada footeriska page 1, barashada footeriska page 2, barashada. so mid kamid ah double click haddaa dhaho mid kamid ah wax ka bedelo. tusaalehaan footer bis hadaa kusoo reebo, mid walba page walba wuxuu yeelanaa footerki iyo wuxuu yeelanaa magaca hadda ugu dambeeyay aa ku bedelay iyo page walba uu yeelanaa. haddii aan rabo marka inaan remove gareeyo page number waxa loo yaqaano footerka iyo headerka, isla meesha tegaya footerka tegaya waxaa leeyahay remove footer. footer dhan oo ismaalay. si lamid ah headerka tegaya waxaa leeyahay remove header. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.